بسم الله waxaan doonayaa inaan dhowr qodob ka hadlo sida ciwaanka ugu jeedaan marka dhowr daqiiqo ka bacdi aan bilaabi doonaa ama hal dhowr second ka bacdi tan ugu horeysa aan rabo inaan ka hadlo waxay tahay maxaan u doonayaa in dhowr jeer aan ku baaqay sida aragteen postiyaan soo dhigay facebookayga in maamulka Muuse Biixi dagaal lagu qaado. maxaan saa u doonayaa iyo arrinta diyaaradii hawada laga celiyay sidaan u arka aniga iyo qodob kale oo ah gooni goosadka Somaliland xaq ma u leedahay Somaliland inay gooni goosad ku dhawaaqdo Soomaaliya ka go'do. waxaan ku bilaabayaa arrinta gooni goosadka Somaliland sida ogtihiin waxay sheegtay inay Soomaaliya ka go'day 1991 ayagu u sababeeyay in markii hore dal ahaan jireen iyo in la dhibaateeyay oo Soomaaliya ay dhibaataysay. tan inay dal ahaan jireen waxa ka ormaayo dadku inta badan way ogyihiin laakiin waa la dhibaateeyay ma noqon kartaa qodob dal uu kala gooyo? jawaabtu waa maya. aniga ma aaminsanahay in la dhibaateeyo Somaliland. yes waa aaminsanahay taliska militariga Somaliland dadka waliba isaaq ah Somaliland dhan yaan oran inkastoo maanta Somaliland intee Somaliland aw maran ka taagan yahay laakiin dadka isaaq waa la dhibaateeyay. yes taliska militariga waa dhibaateeyay xasuuq buu u geystay taas waan aaminsanahay waana dambi ay tahay ama ay ahayd in laga xisaabtamo. waan uga garaabayaa intii aan arrimaha Soomaalida ka hadli jirana mar walba waan qiri jiray in dadkaas dhibaato loo geystay oo maamulkii Maxamed Siyaad Barre uu dhibaato u geystay waliba mid laga baaqsan karay ay ahayd oo talisku mid uu abuuray bay ahayd. laakiin taasi ma noqon karto qodob dalka lagu kala goyn karo waayo adduunka dal aan dhibaato ka dhicin ma jirto dad aan is xasuuqin ma jiro dal dadkiisu aysan si bal wargelin ma jirto. marka waana la dhibaateeyay oo dad baana la ka laayay ma noqon karto qodob dal madax bannaan xuduudo leh adduunka aqoonsan yahay lagu kala gooyo. waana midda ilaa hadda adduunku u aqoonsan la yahay Somaliland ee adduunku u aaminsan yahay in Soomaaliya tahay dal madax bannaan oo xuduudihiisa iyo madax bannaanidiisa iyo gobonadiisa ay tahay in la ilaaliyo. taas hadda intaa kaga gudbo arrinta diyaaradda aniga waxaan u arkaa arrin wax qodob weyn oo hadda sidaas ma ahan loo bumbuuniyo sababtay tahay haddii diyaaradaha loo diido Etoobiyaanka diyaaradooda inay yimaadaan Hargeysa ama wafdigooda baabuur bay ku imaan karaan berri bay imaan karaan ama saa dambe imaan karaan waana laga yaabaa inay yimaadaan oo berri yimaadaan waa dhici kartaa. marka diyaaradooda la celiyo
Etoobiyaanku kuma joogsanayaan berri bay Burca imaan karaan berberi tegi karaan Hargeysa tegi karaan waxay tegi karaan Boorama inta maamulka Muuse Biixi ee gooni-goosadka uu ka talinayo Etoobiyaanku waa imaanayaan way tegayaan marka Etoobiyaanka sida looga celin karo oo dalka looga difaaci karo waa meeshan u socdo oo ah waxaan u aaminsanahay in Muuse iyo taliskiisa meesha looga saaro Etoobiyaanka waxaan isaga celin karnaa dadka u shaqeynaya ee dalka kala goynaya ee maantay go'aansaday inay bad iyo biri Soomaaliyeed siiyaan dadkaas in meesha laga saaro oo Muuse iyo taliskiisa awood ciidan loo adeegsado sababtan u aaminsanahay awood ciidan loo adeegsado kow dal walba difaac qaran walba wuxuu xaq u leeyahay inuu difaacado madaxbannaanidiisa midnimadiisa dhuleed gobonnimadiisa inuu difaacdo xaq buu u leeyahay sida lagu difaaci karaana marka arrintu heerkaana kala joogto ma ahan waraaqo la qorqoro iyo diblomaasiyad iyo wada hadal ma ahan maanta kale waxay joogtaa maalintii xabadda lagu difaaci lahaa dalka maalintii dhiigga loo hori lahaa Muuse iyo taliskiisu way ka gudbeen xuduud walba oo dagaal looga baaqsan karay dhowr iyo 10 sano u dambeysay Soomaaliya waxay isku dayeysay in si walba loo raali geliyo taliska Hargeysa taasna waxay ka sii qaadeen kibir waxay ka sii qaadeen inay maanta yiraahdaan dalkii aan qayb ka mid ah dhaxal wareejinayna oo Ethiopia siinayna cadow soo jireen ah oo 500 sano u dambeysay rabay inuu dalkeena qaato oo dadkeeni iyo dalkeeni qayb dhan oo kamid ah xoog ku qaato haysta oo looga samray ayaa Muuse iyo kooxdiisa waxay rabaan maanta inay ku wareejiyaan intii hartayna waa halis marka waa halis qaran waa halis ummadeed waa halis jiritaanka inta ka hartay Soomaaliya ee maanta xorta ah bay halis ku tahay arrintaas haddaan maanta ogolaano in Ethiopia qaadato Saylac iyo Lughaya oo aan indhaha ka daawano berrina waxay qaadanaysaa Laas Qoray iyo Boosaaso saa dambana waxay qaadanaysaa Hobyo iyo Xardheere iyo Garaac ayaa dadku sida Muuse maanta ugu saxiixay Lughaya iyo Saylac ayaa berrina waxaan arkaynaa kuwa ugu saxiixi doona Hobyo iyo Boosaaso iyo Garaac iyo Xardheere saakuna waxaan arki doonaa Muqdisho iyo Kismaayo ayaguna oo rag Soomaaliyeed u saxiixayaan arrintan ma ahan marka wax la yeelsan karo ma ahan arrin waraaq la soo saaray diblomaasiyad ay ku filan tahay waa arrin ay tahay inaan ka dagaalamno waa arrin ay tahay inaan dhiiggeena u hurno waa arrin ay tahay in aan khilaafyada annaga dhexdeena jira waxyaalaha aan isku haysanaa annaga gudaheena intaan dhinac iska dhigno inaan u midowno inaan isdifaacno la difaacu nafsi inaan dadkeena difaacno sharafteena difaacno qarannimadeena difaacno madaxbannaanideena difaacno xorriyaddeena difaacno oo dagaal baan ku difaaci karnaa taasna Muuse iyo kooxdiisa ee maanta Hargeysa ka talisa waa inaan dagaal la galno waa inaan dagaal u diyaar garowno inaan la galno xataa haddii Etoobiyaanku u yimaadaan oo ciidamo u soo diraan waa inaan diyaar u noqono inaan kula dagaalamno jidadka iyo guryaha
iyo dariiqyada Hargeysa sidii aan dhowr iyo 10 sano ka hor aan Muqdisho iyo jidadkeeda aan ugula dagaalanay. waayo dal walba xor buu u yahay inuu difaaco, xaq buu u leeyahay inuu difaaco midnimadiisa, jiritaankiisa inuu difaaco. taas waa sababta adduunka oo dhan maanta uu Soomaaliya u taageerayo. laakiin adduunku hadal buu nagu taageerayaa. waxaan u baahannahay inaan ficil u bedelno. waxaan u baahannahay inaan dalalka saaxiibka nala ah aan gacan weydiisano, aan ishubayno, aan ciidamo qoranno, aan hub soo iibsano, aan deyn ku soo qaadano, aan deeq ku soo helno. xataa haddii ka tegi weydo inaan keenno ciidamo nala dagaalamo, bal sida Eritrea iyo Egypt iyo Turkiya iyo meeshaan doonaba aan ka keenno. marka arrintu ma ahan arrin sahlan oo kaftan iyo waxyaalo reera ka dhexeeya iyo ma ahan. jiritaankeenni baa khatar ku jira. hadaf Ethiopia doonaysay 500 sano u dambeysay ayay rabtaa inay xaqiijiso. ayaga afkooda nooga sheegaya, waa kuwa u dabaaldegaya, magaalooyinkooda ka dabaaldegayeen maalintii Muuse u saxiixay. ayagaa sheegayo leh oo noo sheegayo leh baddiinaan rabnaa inaan qaadano annagaa leh. sabab marka aan usii dhowranno mid taalo waa inaan dagaal u diyaar garowno, waa inaan hubkeenna qaadano. wiil walba oo Soomaaliyeed, gabar walba oo Soomaaliyeed ee maanta qori qaadan kartaa waa inay qorigeeda qaadato oo ay tagto furinta hore, u diyaar garowdo dagaal lala galo Muuse iyo kooxdiisa meesha lagu dhaafiyo. waayo xaq baan u leenahay inaan sidaas samayno. ma jirto dal naga hor istaagi kara, ma jirto sharci noo diidayaa, ma jiro. xaq baan u leenahay inaan isdifaacno, dalkeena difaacno. ciddii halis nagu ahna aan la dagaalanno, ee dalkeena rabta inay kala goyso aan la dagaalanno. Ethiopia samaysay dhowr sano ka hor Tigray bay weerar ku qaaday ayadoo le waxaan difaacanaynaa midnimada dalka iyo madax bannaanideena. sida Ethiopia xaq ugu lahayd inay Tigray weerarto ayaan xaq ugu leenahay inaan Muuse iyo kooxdiisa weerar ku qaadno oo la dagaalano, meesha ka saarno. ma jiro adduunka dal midnimadiisa aan dhiig loo horin. dowladda weyn ee Mareykanka ee maanta aan naqaano 1 milyan oo qof ku dhimatay dagaalkii sokeeye ee lagu difaacayay ay ku difaacayeen midnimadooda 1860kii. 11 state oo ka mid ah Mareykanka ayaa waxay intay isku yimaadeen go'aan ku gaareen inay Mareykanka ka go'aan oo ay dal kale samaystaan oo la yiraahdo Confederate States of America. 30 state ayaa Mareykanku berigaas ahaa. 33 state buu ahaa. 11 baa go'day. 22 kale waa diideen. dagaal bay qaadeen. 1 milyan oo qof ku dhimatay. halka milyan oo qof maxay ku dhinteen? waxa la difaacay qarannimada iyo wadajirka iyo midnimada Mareykanka. waana tan ay ku noqdeen dawlad weyn ee maanta adduunka hogaamisa. haddii iska dhaaf laayeen oran lahaayeen xaq way u leeyihiin inay go'aan oo waa indhahan ka fiirsanayna maanta ma jiri lahaa Mareykanku, ma jireen. marka midnimada iyo madax bannaanida iyo gobonnimada daleed waxaa lagu difaacaa xoog, xabad ayaa lagu difaacaa marka halis kala goynaysa ay timaado. waxaan aaminsanahay marka anigu Muuse iyo taliskiisa noqday horgalka u noqday Ethiopia ee dalaalka dhulkii Soomaaliyeed maanta dalaalka noqday iibinaya. waxa kaliya ee aan ku wajihi karnaa waa inaan dagaal la galno. qodob kale oo aan rabo inaan wax yar ka iraado wuxuu yahay dad badan ba arrintan si qabiilaysan uga hadlaya.
oo si qabiilaysan u weeraraya beelaha isaaq arrintu qabiil ma aha muusena isaaq ma matalo muuse isaaq oo dhan ma matalo isaaq oo dhan ma rabaan in dhulkooda dhaxal wareejiyo marka isaaq yaan laga dhigin cadow dadka Soomaaliyeed leeyihiin arrintaas waa gaf waana halis oo dadka sii kala fogeynaysa isaaq badan baa ka soo horjeeda ficilada muuse isaaq badan baa ka soo horjeeda in dalka la kala gooyo isaaq badan baa xataa ayagu aaminsan in Somaliland goodo waxay ka soo horjeedaan in dhulkooda dhaxal wareejiyo marka yaan laga dhigin arrinta cadow yaan laga dhigin oo lagu shaabadayn isaaqa oo arrinta qabiil laga dhigin taas waa midda uu rabo cadowgeenu waa midda Ethiopia rabto waa midda ay rabto inay 30 sano u dambeysay ay nagu maamuleysay oo ay dalkeena ku faragelinaysay inay cadow anaga iskaga kaay dhigto inay qabiilada Soomaaliyeed qabiilba qabiil ku dirto taasi qofka isaaqa cadow ka dhiga waa qof Ethiopia u adeegaya waa qof shisheeye u adeegaya asagoo aan is ogeyn xataa marka arrinta qabiilada xagga naga dhiga marka aniga waxaan aaminsanahay muuse iyo taliskiisa inaan la dhowran oo la sii fiirsan oo wada hadal iyo sharar meel lagu qabto dadka lagu maaweelin dalkan iyo dadkan halis bay ku jiraan cadow soo jireena ayaa maanta doonaya inuu qaato qayb ka mid ah waa in laga dhiidhiyo laga dagaalamo wax walba aan aadno awoodna aan hurno si walba oo aan ku dagaalami karaan ku dagaalano aad baa u mahadsantiin